أيوب أيوب فرينتان أذي كو سعطا أيوب جعلكو حنون كل ليهاي أيوب جعلكو حنون كل ليهاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايدين سلام ولا ugu qaaliga ah meel walba oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada channelkayga halkaad igala socotaan waa Fahiim Show. haddaad cusub tahay soo dhawo ayaan ku leeyahay fadlan channelka subscribe saar. gabadhan waxay la oynaysaa jacayl ay u qaado wiil asaageeda ah. sanadkan waxaa arkaysaa gabar ninkeedii dilay iyo gabar nin jacayl u qaado oo sidaan oo kale u ilmeynayso. nimanku waxay noqdeen badana ragga lama wada dhihi karo way wada xun yihiin laakiin gabar jacayl u ooysi iyo gabar ninkeedii dilay أيوب جعلكو حنون كل ليهاي سوال بوني سرعتي سعيد اسمعني كرو حبيبك اسمعكم مركو ساحد وانسكو أويا كلي بان نقضي سمعي ما قرني dumarka waa iska masaakiin aadna way u calool jilcan yihiin. waxa ay moodaan qof kasta oo dhaho waa ku jeclahay in uu run yahay. ragga badana ayaa jiraan qaar aysan runka ahayn iyo qaar ay runka tahay. shanta farood ilaahay ma siimin oo ragga waxaa ku jiro qaar wanaagsan iyo qaar xun dumarkana sidoo kale. laakiin dadka loo oynayo oo sidaan rafaadka loogu maraayo waa ragga. sidoo kale waxa dhibka geysanaya oo dumarka Soomaaliyeed qaar ka mid ah dhibka ku hayana waa ragga. waxaana idin cadeynayso dhacdooyin dhacay isbuucyadiina dhaafay. gabadhan idin muuqato way dhimatay Ilaahay u naxariisto waxaana dilay ninkeedii. Maryan waa gabar Soomaaliyeed oo ku nooleed magaalada London. gabadhan waxaa dilay ninkeedii waxaana la sheegay in uu sidii hilibkii oo kale u jarjaray. muddo dheerna waxa uu ka fikirayay sidii uu yeeli lahaa hilibkeeda ama jirkeeda ama lafaheedii uu googooyay. bal ka waran waxa laga cabanayo ee dhibaatada laga sheeganayo waa nin Soomaaliyeed. waxa ay walaasheen u oynaysana sidoo kale waa nin Soomaaliyeed. ragga dhan ma wada eedeynayo oo qaar wanaagsan ayaa ku jiro laakiin way yar yihiin ayaa la dhihi karaa. sidaas si lamid ah waxaa jirtay gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Shukri Cabdullaahi in uu ninkeedii ku dilo Soomaaliya. ninkeeda oo la sheegay in uu midi ka geliyay halbowlaha ayay u dhimatay dhaawac halis ah oo soo gaaray. wax laga tabanayo waa nin Soomaaliyeed. Shukri waxay ahayd hooyo korsanaysa caruur halkii ay ka shaqaysanaysa ayuuna falkaasi ka dhacay. Ilaahay ha u naxariisto labadaas gabdhood waa wax laga xumaado. gabar jacayl u ooyso iyo gabar ninkeedii dilay ayaa la marayaa sanadkan. sanad walba wuxuu leeyahay shartiisa iyo qeyrkiisa. gabadhan u jeedaan ma ahan kaligeed wax jacayl u ooyo uguma horeysa ayada oo dad badan ayaa sideedoo kaleeto ilmo u soo daadiyay oo jacayl u soo qaada rag Soomaaliyeed. gabdhaha waa inay iska ilaaliyaan nimanka qaar ee jacayl intay ku abuuran uga baxaan waayo ragga ma wada wanaagsano qaar fiican iyo qaar xunba way isku jiraan. dumarkana aad ayay u jilicsan yihiin qof kasta oo dhoo waan ku jeclahay run ayay moodaan markaas ayay gadaal dambe waxay ka arkaan ninkii in uusan daacad ahaynin. marka wax walba in laga fiirsado way fiican tahay. horaa waxaa loo yiri in lees aamino waxaa ka roon in aan lees aaminin. wax kasta in la hubsadana way wanaagsan tahay. waad mahadsantihiin walaalahayga. fiidiyogan waxaa u soo qaatay gabdhaheena qaar ee u ooynaya jacaylka iyo gabdhaheena qaar oo raggoodii dileen. waxa wax laga tabanayo waa rag. isbuucan dhexdiisa waxaad maqasheen laba gabdhood oo aad u yaryar oo la kufsaday. yaa kufsaday? rag Soomaaliyeed unbaa kufsaday. marka waxaa la dhihi karaa ragga Soomaaliyeed waxaa badatay eedeynta loo jeedinayo iyo dulmiga ay u geysanayaan dumarka Soomaaliyeed. xitaa gabadhan u ooynaysa jacaylka ninka waxaa laga yaabaa in ay balan wada galeen ama uu jacayl ku abuuro oo uga baxay sababta oo afariintan adiga ay kugu socotaa ma imaan. waa mahadsantiin asxaabteeda sida wanaagsan ay ila joogtaan. adduunka inta aad joogtid wax ka yaabi ayaad arkaysaa. fiidiyowga xigo intaan ku kulmayno waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.